waa arrin dood badan dhalis sadaqada dhalinyarta TikTok-ga haddaad hal dhig marka hore wax ka maqashay si fiican naga haday ugu fur labada dhagood wax ka maqal qof in aad cuqdad uurka kugu jirto ku xasadid yeysan kugu xabaarin camalkaada inuu buro dhalinyaradaas weeye mustaqbalku kuwaan ma ahan yaqyaqle iyo kuwa meelaha kale ku jira wixii kale eber bay noqdeen waxayna leeyihiin annaga maxaa naloo aamin waayo dhalinyartan TikTok ee maalin kasta gabdhaha la ninkeeyay loo aaminay ilaahay ummadaha islaaxiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha ku xiran iyo bahweynta nala socota ee channel kale nagala socota badbaada channel meel kasta joogtaanba rabbiga haydan barakeeyo muraadkiinana ha sahlo ilaahayna faraj khayr qaba haydan siiyo dalkeenu waa mid kala irdhoobay gobolba gobol markaynu fiirino cirif ka cirif dhibaatooyinka iyo imtixaanada haysta waxaa ka mid ah abaaraha iyo colaadaha iskhilaafka kaasoo baraka xumo laga dhaxlay abaar baa saameysay wadankeena baabi'isay taasoo ka mid ah waxyaalahan kasbanay qayb yaroo ka mid ah dhibaata ma dhacdo ilaa bini'aadanka kasbaday dhibaatadaasna laguma qaado ilaa towbad iyo istighfaar mooyaane hadalku si fiican ha idin dhaadhaco waxaan rabaa in aan ka falceliyo oo aan ka hadlo dhalinyaro tiktoker ah oo tiktoka caanka ah oo mid ka mid ah xitaa uu yahay madaxweynihii tiktoka ninka dhalinyarada ee Bilaal Bulshaawi lagu magacaabo iyo dhalinyarada kale ee la shaqeeyay ee la socota arrin ku tacalluqda dhalinyaradan horta waxay sameeyeen wax aniga iyo adiga iyo qof kale iyo dawlad ay ka caajistay inay sameeyaan in lagu ammaano oo lagu dhiirigeliyo ayay xaqiiqatan mudan yihiin balse bini'aadanka meel kastuu joogaba kuwa buka kama suulayaan inay ku jiraan oo cuqdado gaara ay hayso walaalahaasi ka soo safray intaas oo kiiloomitir Muqdisho kadib waxay imaadeen gobolka la yiraahdo Gedo oo ka mid ah gobolada Soomaaliya kuwa waliba abaartu si xun u saameysay goboladu waa si kala daran yihiin Soomaaliya oo abaartu ay saameyso isma dhaanto laakiin waa si kala daran yihiin Gedo waxay ka mid tahay gobolada abaartu ay xaqday baan la hawla wala quwwata illa billah ilaahay dambigeena ha dhaafo dambi on kasbanin baa waxa ku dhacaya ummadana ilaahay qalbigooda soo jeediyo dhalinyaradaas marka TikTok-ga ay wax ka ururiyeen ciyaaro iyo geema ay dheelayeen iyo tabarucaad ay sameeyeen kadib way bixeen Geday tageen de muuqaalada waad aragtay Facebook iyo meel walba ma qarsoona hooyooyinka say u rafaadsan yihiin iyo masaakiintu say u rafaadsan yihiin iyo diifta ka muuqata adigu aad naxaysid adigan biyaha qabo ku seexday guriga dugsi ee galaya qoslayo caruurtaada dhex fadhiya dad baa kala irdhoobay dhibaatada adduunyada kala irdhays gargaar ilaahay baa gargaaray ee muslimiinta Soomaalidu ay soo dhiibeen ayay u qaybinayeen dad baa ka xumaaday qaar qabyaalad ahaan u sheegaya qaar xumaan kale u sheegaya bal codadkan ila dhageysta saasaan jecelaystay inaan uga falceliyo oo aan ka hadlo arrintan maadaama ay aad iyo aad arrintani u saameysay qadiyadan musaacadada walaalaha muslimiinta ee dhibaataysan oo fiirsada dhalinyartan kale waxay ku hadlayaan kuwan kale waa dhalinyaro kuwan wax gargaarayna waa dhalinyaro ilaahay u soo diray ilaahay u soo marsiiyay bulshadaasi waxa haba yaraatay ilaahay baa wax deeqay kuwan waa dhalinyaro ka xumahay marka waa arrin dood badan dhalis sadaqada dhalinyarta TikTok-ga balagayso daaroodka oo mareexanka si geligaajin uu baqtiyo raafiiri caruurana yarka ay caawinayaan ninka dhalinyarada ee codkiisa aad maqlaysaan qabyaalad baa kala qiimo badan ilaahay qowlkiisa subxaanahu wa ta'ala waana dhalinyaro markaan fiiriyay meelaha barnaamijtan lagaga hadlayo la soo geliyo commentigaan fiiriyay waad naxaysaa ree hebel baa fadeexaynaysaa saanay ka dhacday annaga waxaad naga dhigaysaa waxaan ahayn adigii baa subxaanaka yaa rabbi ummadaasaa doonaysa marka abaartaas iyo colaadaas inay ka baxdo marka bahaa'imtii iyo dadkii masaakiinta iyo hooyooyinka kuwaasi dembigii kasbadeen haddana u jiirayaan ilaa Soomaalidu hore waxay u dhaheen dab munaafiq shiday mu'min baa ku gubta sadaqadaas ay dhalinyartaasi la soo marsiiyay ee ay bixinayaan masaakiinta u qaybanayaan dadkii waxay ku tilmaameen isla weynin ismaqashiis istustus kibir show iyo wax la shidayo maaragtay arkay weeyay dhaheen kaana waxaad moodaa intay dhex galeen niyadooda inay ka soo dhex hadleen way dhaheen niyadoodu waa saas ilaahay awoodihiisa baa dadku qaadanayaan ayagoo is ogay subxaanahu wa ta'ala dadka qaar waxay leeyihiin oo ay ku cilaynayaan Gedo maxay u aadeen macnaha dadka qabyaaladii xuquuqanka wax ka dhigay Gedo gobolada kale waa la mid ilaahay hadduu mid u diray ama gobol u diray ama meel u diray macnaha adigu ka raadinaysid ee xuni waa maxay waan ka hayn adigu dhiigaada iyo dheecaankaadu xun yahay balse Soomaali taayana ka xun muslimna sheeganay Gedana waxay ka mid tahay gobolada aad abaartu u saameysay
adigaadan haddaad baashaalaysid qofka miskiinka qofka u geeyay isku qabiiliyi adiguba hataa isku qabiil ahaatiine laakiin xaqiiqatan qofka u gargaaray ee wax siiyey ayay isku dad yihiin kuma yaqaan lianna adigoo saan sheeganayo isku cid sheeganaya hal shilin u bixin hal waxna ugu gargaarin marka ceebteena ay astureen walaalahaas ilaahay khayr ha siiyo waxay ugu daran qaarkood la yaabay waxay leeyihin sadaqada la duubayo ee aad soo dhigaysaan waa maxay ma dadka u qaybaysaan oo bas haddaad hal dheg marka hore wax ka maqashay si fiican dhagahaada igu furo labada dhagood wax ka maqal waxaanad ogaataa sadaqadu marna waa la muujiyaa marna waa la qariyaa qaris keliya adigu maqasha bas haddii maslaxa ku jirto muujinteedaas waa bal waajib way in la muujiyo in la qariyaa markaa xaaraam noqonaysa haddiina diintaan aqoon u lahayn oo axkaamteeda aqoon u lahayn wax aad maqal idinku ah bas aad ku andacoonaysaan waxaa fiican in la iska aamusto falyaqul khayran aw liyasmut inaad iska aamustaa la qaatay bal gabadhan nagnagan oo indhaha cadaynaysana dhegayso codkeeda waa muftiyad gabadhan mufti weyn waay muftiga qaranka waa ilaahay wuxuu yidhi haddaad wax baxsanaysid midigta ka qari bixida ha bixiso ilaahay sidaa ma orane ilaahay wuxuu sheegay 7 carshiga harsanaysa hooskiisa mid ka mid inuu sadaqa si sira u baxsan jiray ee ilaahay xukun halkaa nooguma soo dejin arrintaa dhacday buu rabbi ka warramay subxaanahu wa tacaala wax maqal kugu ah oo 4 xabo la isku aadiyo maqala dhibaatadana laga dhaxla waa gabar gurigoodii joogta maalintiina shaawar ku qubaysanaysa habeenkiina ku qubaysanaysa kareenna marsanaysa wax dhibaya mushkilad ay haysan marka dadka masaakiinta loo gargaaraya ee dhamankoodii qalalay biyo waxay dejiyaan iska dhaaf waxay ku weysaystaan iyo waxay ku qubaystaan iska dhaafay waxay dejiyaan waayay dadkii u gargaarayay bay hadalka ku leedahay haddaad khayrka adu wax ku taageerayn shar furaha noqon dadka ilaahay waxa ugu khayr badan kan khayrka fura shartara xira waxa ugu shar badan midka khayrka xira sida kuwaan oo kale shartana fura qof in aad cuqdad uurka kugu jirto ku xasidid yeesan kugu xabaarin camalkaada inuu buro dadkan dhalinyarada dhammaan waxaan ku fasiri karaa waxa weeye maadaama kuwa dhalinyaro yihiin sidaasna ilaahay ummadooda ugu anfacay annaga maxaa halkaana dhigay oo ayagu sidaa u noqdeen xasidnima wadaan dhihi karaa wax kale aan ku fasiri karo ma garanayo adinku xataa fasir kala haysaan bala wadaaga anigu fasir kale waa waayo oo xasidnimo iyo cuqdad aan ka ahayn adu haddaad wax sadaqaysanayn dadka wax sadaqaysanaya adoomaha alle ha hor istaagin sadaqadooda ama tashwiisha uga furi sadaqada marna waa la qariyaa marna waa la muujiyaa ilaahay wuxuu yiri wa in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqaraa fa huwa khayrun lakum hatta sadaqada muujisaan fa ni'mahi wa sadaqadi niyadaadu waa haddaad muujisaan wa in tukhfuha haddaad qarisaan oo tu'tuha al-fuqaraa fuqarada siisaan fa huwa khayrun lakum saasani khayr badan labadii dhinac way banaanta dad baa wax soo dhibtay dadkii wax soo dhibay adduunka waa ay tusoo taabsiisaasay rabaan mid kale dadku in dad masaakiin oo dhibaataysan jiraan baa loo soo duubay loo soo gudbinaya oo inta ay in ka badan u baahan yihiin dadkii waa sadaqada lagu marka muuqaaladan la duubayo dadkaas sadaqada lagu dhiirigelinaya mooyaan wax kale ma jiraan walaalihiina soo gaarasaan ay u dayacan yihiin weey aduu haddaad guri qurux badan jiiftid kuwa dhiban waxaan soo xasuustay marka qiso nin dhalinyaro ah oo dadka qaarna dhahan waa Soomaali asalkiisa laakiin carab khaliiji ah oo caan oo YouTuber Abu Falla la yiraahdo ayaa 27 saacadood live YouTube ku jiray wuxuu ururinayay lacag 1 milyan oo dollar oo xilliga qaboobaha qaxootiga Suuriya iyo maaragtay Shaam ta kale iyo Yaman iyo dhar loogu gaday teendo iyo meel qabooba ka kalaan xilliga qaboobaha 1 milyan oo dollar uu ururiyay mid asna YouTuber ah oo asna caan oo la yiraahdo Ibn Suuriya oo Suuriyan oo Turkiga degan asoo weeraray saan kale oo istusaya oo iska gadaya daawashu raadinaya wuxuu raadinayaa in uu traininga soo galo dadkeena uu ceebeeyay ciida anagu cunaa marka inuu wax weyno sharafta iskama qaadno ma tuugsan ada guri filaa weyn oo Turkiga ku jira asoo qurux ku jira dadka qabowga iyo gaajada leeysan waxba kama garanay dadkii shacabka ahaa say u galeen iyo dadkii kaleba waa la ogaad marka waa sidoo kale
marka dhalinyartaas sida ilaahay ummadda ugu gargaaray bay kuwaani ka xun yihiin baan dhihi karaa wax kale oo ku fasiri kala ma jirto dhalinyartaas waxaan leeyahay ceeb badan baad surteen dadkii waaweynaa horjoogayaasha bulshada waxay samayn kari waayeen annagu samayn kari weynay oo aan ban yacni lugba u noo qaadinba ayaad samayseen jazaakumullahu khayran dhalinyaradaas weeye mustaqbalku kuwaan ma ahan yaqyaqle iyo kuwa meelaha kale ku jira dhalinyaradaas weeye kuwa tiktokerka aan hore u sheegay alla yaabantihiin kuwaasaa mustaqbalka ummadda u gargaaraya kuwaas weeye yoolka ummadda u haray bas wixii kale eber bay noqdeen munaafiqiin bay intooda bay isu bedeleen waxayna leeyihiin annaga maxaad naloo aamini waayo dhalinyartan tiktok ee maalin kasta gabdhaha la ninkeeye loo aaminay oo magacaan u qaateen iyo sharaftan iyo makaanadan annaguna dhulkaan u aalanaayo cid baysaan aqoon saa unbaa laga fahmayaa hadalkooda iyo risaaladooda iyo fariintooda ilaahay ummadda ha islaaxiyo abaarta iyo colaadana ha ka saaro dembigoodana ha dhaafo kuwa toobad keenan allah naga dhigo si roobka iyo barwaaqadu u timaado insha allahu tacaala horay u socda baaraka allahu fiikum saa u aragtay barnaamijkana adiguna waa nala wadaagi kartaa adoo ixtiraamaya shakhsiyadda qofka iyo dadnimadiisa iyo niyadiisaba insha allah baaraka allahu fiikum